maktabadan ay diyaarisay jaamacadda Muqdisho oo ah mid digital ah ama casri ah ayaa waxa ku kaydsan in ka badan 35 milyan oo macluumaad dhinaca waxbarashada ah kuwaas oo ay qayb ka yihiin muuqaallo qoraallo iyo bara kala duwan oo dhammaantood laga heli karo qaybaha kala duwan ee cilmiga iyadoo ardayda loo diyaariyay barnaamij si fudud ay ugu gali karaan maktabadan si ay u helaan macluumaad dheeri ah oo duruusooda la xiriirta haddii ay u baahdaan madaxa xafiiska gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Ustaad Daawud Muuse Daawud ayaa sheegay in iyaga oo qiimeynaya baahida ardayda ay dadaal badan ku bixiyeen waxay awood u yeelan doonaan in ay ardada diyaarinayo thesiska kuwa sameeynaayo projectiska kuwa ku jiro assignmentyada kala duwan ee kuliyadaha jaamacadda ay ka kooban tahay ee looga soo diro in ay ka heli karaan kana raadsan karaan macluumaadka ay u baahan yihiin waxaad og tahay internetka aan heesano in inta badan culeysyo laga sheegto inta badan uu kaaga baahan yahay in aad sugtid uu kaaga baahan yahay waqti inaad siisid balse uu ka duwan yahay e-granary digital library-ga maanta jaamacaddu ay furayso waa in seconds way marka ugu horeyso aad click siisid macluumaadka u baahanta automatic u galaysa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Muqdisho ee dhinaca waxbarashada Dr. Cali Daahir ayaa ku bogaadiyay ardayda inay ka faa'iideystaan fursadan ardayda way u baahan yihiin inay helaan buugaag casri ah inay helaan article cusub inay helaan iyadana muhiim ah u tahay insha Allah arjina marka inay tahay sanadka ka dambeeyo in la gali doono marka qorshe cusub oo ardayda lagu horumarinayo gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo daahfuray ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid ahmiyad gaar ah u leh ardayda jaamacadda Muqdisho iyo dhammaan bahda waxbarashada dhammaantii waa mahadsantihiin waa wax weyn oo dalkeena iyo dadkeena u soo ziyaaday weeye aqoon ayaa meel lagu gaaraa aqoon baa lagu horumaraa aqoon la'aan waa iftiin la'aan baa horey loo yidhi marka sidaa daraadeed waxa weeye waa iftiin weyn oo inoo baxay weeye maanta marka waxaan rajaynayaa